garas baaley mid ka mid ah deegaanada sida xawliga ah u koraya dhinacyada waxa ay ku haysaa degmooyinka Kaxda iyo Dayniile waxa ay xuduud wadaag iyo dhaxeen u tahay Shabeellada Hoose iyo caasimadda dalka Muqdisho. TV-ga dawladda iyo qaybta dalxiiska wasaaradda warfaafinta ayaa ka mid ah dalxiiskan quruxda badan oo ay maanta martigelisay garas baaley. qada ka kooban cad iyo caano waxaa xigay casiriyo dalagga qudaarta iyo xubuubka oo ay gogashan lahayd. Cabdirashiid Cali Dubbad oo ah gudoomiyaha dhalinyarada garas baaley ayaa ujeedka ay u martigeliyeen dalxiisayaasha la wadaaga warbaahinta qaranka. maanta waxa sugan mid garas baaley wax kamid ah joognaa qaybta dalxiiska waxa u jeedaan odayaal ma waa dhalinyaro dadkan waxay halkan u yimaadeen in magaalada buuqeed halkan ay kaga nastaan kulamo dalxiiseed badan aan halkan ku qabanay dhalinyarada aad ay u amaaneen deegaanka iyo quruxdiisa waxaan diyaarinaynaa inaan martigelino kulamo kale iyo hujuum kale oo kuwan ka badan waxaan rajaynaynaa in garas baaley fast one ay noqoto hadda booy tahay degmooyinka asaageeda la tartantaa waxaan rajaynaynaa garas baaley barta dalxiiska inay noqoto. Ibrahim iyo Felis labadaba halkan barasho iyo nasiina ay u tahay waxayna kaga mahad celiyeen kaalinta amni iyo martisoorka ay u sameeyeen maamulka garas baaley. maantii garas baaley waxaan u tilmaami karaa deegaan aad u jawi macaan qabow jawi degan oo run ahaantii sidaad arkaysaanba doogiisa aad ma aragtay uu yahay maxay doog indhaha soo jiidanaya dhir kala duwan oo dhirtii miyiga lagu yaqaanay ayaa halkan dabcan maanta iga muuqday waxa kamid ah dhafaruur waxa kamid ah geedaha kale ee kala duwan ee Soomaalidu u taqaano muryoodka iyo geedaha fara badan ayaan halkan ku arkay maanta farxad bay ii tahay runtii in muddo kadib geedo noocaas aan arko waqtiga aan halkan ku qaadanayaana waa mid runtii aanan lagu soo koobi karin oraah kooban. waxaan u mahad celinayaa TV-ga qaranka oo maanta qayb ka ahaa dalxiiska degmada garas baaley aan u imaanay haddana dhalinyarada Muqdisho waxa aad ugu faraxsanahay inaan imaano deegaan aad u qurux badan oo farxad leh oo jawi fiican aan ku qaadanay maalinta Jimcaha shaqooyinka laga nasanaayna dhalinyarada inta badan u soo dalxiisaan oo degmada garas baaley meel aad u qurux badan ee leedahay oo dhalinyarada si aad qurux badan loogu soo dhaweeyay dhalinyaradana waxa ku boorinayaa inay degmada u soo dalxiisaan oo ka qayb qaataan horumarkeeda. maamulka ayaa ballan qaaday in dhalinta iyo daneeyayaasha kale aan looga sheekaynin garas baaley oo amni iyo bidhaan labadaba kulansatay sida gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda garas baaley Cali Maxamed Macallin Caliyare oo u sheegay warbaahinta qaranka. waxaan u diyaarinay dadka magaalada Muqdisho ku nool oo ku jira maanta inay ka nastaan hawl maalmeedkoodii caadiga ahaa inay waqti fiican qurux badan deegaankan aad u macaan udug gale carfoon inay ku qaataan waqti aad u qurux badan uga nastaan shaqooyinka iyo mashquulka ay ku jireen hawl maalmeedkooda saasaan u diyaarin waa la isku haleyn karaa amnigeeda waa qurux badan tahay saad u jeeda haddaba oo nala joogtaan amnigeeda stable waay waa degan yahay waa la imaan karaa waa lagu dalxiisi karaa waa soo dhaweynaynaa wax dhiba kama jiraan maasha Allah. Cabdi Fataax Qaasim oo ka mid ah dhalinyarada maanta sidoo kalena ah mid ka mid ah xildhibaanada federaalka ayaa u jeediyay laanta fulinta inay iska xil saarto laba wasaaradood oo muhiim u ah jihaynta dhalinyarada. maanta waxaan joognaa garas baaley ayaan waxa joognaa runtii oo gudoomiyaheedii uu aad runtii noo soo dhaweeyay oo halkaan aan ku qadeynay ku jimceysanay kadibna aan soo aadnay goobahan aad u jeeday quruxda badan runtii oo indhaha soo jiidanayo inta isugu timid oo dhalinyaro ah waa dareemi kartaa waxa weeyaan rajada u muuqata magaalada Muqdisho. aniga waxaan ka mid ahay dadka aan aaminsaneen in dhaqaale badan ama miisaaniyadda intiisa badan ee dawladda loo waaciyo dhanka militariga iyo dhanka muxuu ahaa wasaaradaha kale ee markaasi loo waaciyo aan aaminsaneen waxaan aaminsanahay dhaqaalaha ugu badan ama miisaaniyadda budgetkeeda ugu badan in loo waaciyo wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska iyo wasaaradda dhalinyarada waayo amniga la sheegayo waa dareen amniga waa la sheegayo waa dhalinyarada waxa weeyaan la jiheeyo lagu jiheeyo lana tuso dalkan inuu barwaaqo yahay la tuso in dalkan uu yahay isbeddelkiisa inuu iyaga sugayo waxa ka Abdulqaadir Ciise warbaahinta qaranka garas baaley.